Ra'iisul Wasaaraha waddanka Jarmalka Friedrich Merz ayaa ku waramaya in uusan carruurtiisa iyo dhalinyarada guud ahaan reer Jarmal uusan kula talin lahayn inay u safraan ama ku noolaadaan waxna ku soo bartaan ama ka shaqaystaan waddanka Mareykanka oo uu sheegay inaysan hadda ka jirin fursado badan bulshadeedana ay ku sii socdaan isbeddel xooggan oo aan ahayn dhanka wanaagsan. Merz ayaa ka dhawaajiyay in dadka Mareykanka ee waxbartay ay la kulmayaan caqabado waaweyn oo ku saabsan helitaanka dhanka shaqada ah. Waxa uuna sheegay inuu aaminsan yahay inay jiraan dalal yar oo adduunka ah oo bixiya fursado badan sida waddanka Jarmalka ee uu ra'iisul wasaaraha ka yahay. Wuxuuna sheegay inuusan carruurtiisa maanta kula talin lahayn inay u guuraan waddanka Mareykanka ama ay waxbarasho halkaasi u aadaan si ay uga shaqaystaan. Wuxuuna sheegay in jawiga bulshada Mareykanka ee hadda uu yahay mid isbedelaya kana soo ifbaxayo xaalado aan wanaagsaneyn. Ra'iisul wasaaraha waddanka Jarmalka Friedrich Merz ayaa ah 70 jir, 3 carruur aabba u ah. Wuxuuna sheegay in carruurtiisa uusan marnaba kula talin lahayn inay Mareykanka u hijroodaan. Xiriirka ka dhexeeya Mareykanka iyo Jarmalka ayaa sii xumaanayay. Waxa uuna Mareykanka kal hore sheegay in Jarmalka uusan ku taageerin dagaalkii uu ku qaaday waddanka Iiraan, taasoo keentay in uu ka caroodo madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump. Waxa ayna taasi sababtay in ciidamo badan oo Mareykan ah uu kala baxo waddanka Jarmalka, una sheegay in uu dhimi doono ciidamada Mareykanka ee ka jooga waddankaasi, kuwa oo tiradooda hore ay u gaarayeen ilaa 46,000 oo ciidamo Mareykan ah oo ku sugan gobollada iyo deegaanada kala duwan ee waddanka Jarmalka. Waxaana toddobaadkii hore uu kala baxay ilaa 5,000 oo ciidan oo Mareykan ah, kuwa oo uu ku celiyay dalka Mareykanka. Xiriirka Mareykanka iyo Jarmalka iyo wadamo badan oo Yurub ah ayaa aad u sii xumaanaya. Waxa uuna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay wadamada Yurub cashuurta dhanka gaadiidka midowga Yurub ay soo saaraan iyo warshadahooda, kuwa oo uu Jarmalka ka mid yahay wadamada ugu wax soo saarka badan marka ay timaado dhanka gaadiidka. Waxaana lagu soo waramayaa xiriirka sii xumaanaya Mareykanka iyo Yurub inuu sababi doono burbur ku yimaado gaashaanbuurta NATO oo ah dhanka militariga hay'adda ugu weyn ee ay ku taagan yihiin Mareykanka iyo Yurub, kuwa oo difaac ahaan u dhisan. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdulaahi Shiine.